weligaa ma aragtay qudhaanjo sidan u naxariis daran. Bobeeye wuxuu kaliya ku eegay muraayad weynaysa. Waxay si xanaaq leh u weerareen gurigiisa cusub. Markii uu arkay xaaladda, Bobeeye wuxuu si degdeg ah u xiray albaabka si uu u nabadgalo. Laakiin intaanu nasan, qudhaanjadii waxay si nadiif ah u cuneen albaabkiisii oo dhan. Kadib waxay si degdeg ah u aadeen gurigii cusbaa ee Bobeeye. Bobeeye wuu argagaxay, wuxuuna si degdeg ah u cararay si uu u bedelo jihada ay u socdaan. Kadib wuxuu isticmaalay dheriga birta ah si uu dhammaantood ugu xiro qol yar oo mugdi ah. Bobeeye isagoo u malaynaya inuu guulaystay ayuu si degdeg ah u cararay. Lugtiisii hore ayaa socotay, markaas ayay qudhaanjadii maskaxdooda ka shaqaysiiyeen. Si la yaab leh, waxay isku urureen si ay u sameeyaan jaranjaro dheer. Awood aan caadi ahayn ayay ku fureen dherigii. Isagoo aan waxba ka ogeyn, Bobeeye wuxuu ku mashquulsanaa dhismaha albaabkiisa cusub. Nasiib darro, ilbidhigsi kadib, qudhaanjadii waxay cuneen deyrtii oo dhan. Xawaaraha ay ku cuneen wuxuu ahaa mid cajiib ah. Bobeeye isla markiiba wuu naxay. Ilbidhigsiga gudahood, deyrtii dhowrka boqol ee mitir ahayd waa la wada cunay. Xoogga qudhaanjada ayaa runtii ka nixiyey Bobeeye. Si uu u difaaco gurigiisa cusub, Bobeeye wuxuu go'aansaday inuusan u naxariisan. Wuxuu si toos ah u soo saaray mashiin yar oo wadada sima. Isla markiiba qudhaanjadii way carareen. Laakiin Bobeeye si fudud ugama uusan harin. Wuxuu ku adkaystay inuu wada baabi'iyo. Si kastaba ha ahaatee, caqligu wuu ka xoog badan yahay awoodda. Qudhaanjadii waxay si toos ah u burburiyeen buundadii alwaaxa ahayd, taasoo keentay in Bobeeye uu ku dhaco godka isagoo dhoobo ku dahaarmay. Arrintan ayaa Bobeeye ka dhigtay mid aad u xanaaqsan. Markuu arkay in qudhaanjadii ay isku dayayaan inay gurigiisa weeraraan, wuxuu si degdeg ah u qoday god weyn oo uu biyo ka buuxiyey. Biyihii ayaa daadshay, waxayna si lama filaan ah u hakisay qudhaanjadii. Markii ay arkeen qudhaanjadii dhinaca kale oo ku qaylinaysa, Bobeeye wuxuu dareemay farxad weyn. Wuxuu si degan u galay gurigiisii si uu u nasto. Laakiin ma uusan filaynin in qudhaanjadii ay si ula kac ah isu muujiyeen inay daciif yihiin si ay u nastaan. Waxay si qarsoodi ah u soo mareen meel kale. Markii uu Bobeeye isku dayayay inuu caano cabo, wuxuu ogaaday in miiskiisii la cunay. Intaanu ka soo kaban naxdintii, alaabtii guriga oo dhan ayaa la wada cunay. Gurigiisii oo dhan ayaa la wada cunay. Bobeeye oo gurigiisii oo dhan la cunay, aad ayuu u naxay. Xoogga qudhaanjadu wuxuu ahaa mid aan la qiyaasi karin. Markii ay cunadoodii dhamaysteen, qudhaanjadii waxay bilaabeen inay iska nastaan. Qaar waxay cadayanayeen, qaarna waxay sameeyeen xaflad. Waxay xitaa sameeyeen isqurxin. Qudhaanjadii waxay ubax ka dhigteen dhar, waxayna timaha ku qurxiyeen galay. Waxay isu bedeleen gabdho qurxoon. Kadib waxay saytuun ku dareen naasaha iyo dabadooda. Waxay heleen qaab jidh oo soo jiidasho leh. Ugu dambeyntii, ubax ayay u isticmaaleen sidii agab qurxin ah. Koox qudhaanjo ah oo qurux badan ayaa soo baxay, waxayna bilaabeen inay cayaaraan iyagoo ku jeesjeesaya Bobeeye. Bobeeye sidee buu u adkaysan karaa baxdilaada? Isla markiiba wuxuu soo saaray spinach, wuxuuna galay qaab dagaal. Runtii awood la'aan, qalab ayaa loo baahan yahay si loo buuxiyo. Bobeeye oo awood yeeshay ayaa dhowr boqol oo tan oo bir ah soo qaaday. 3 feer iyo 2 haraati wuxuu ka dhisay guri bir ah. Qudhaanjadii oo aan waxba ka ogeyn ayaa si xamaasad leh ugu soo orday. Natiijadii, ilkahoodii oo dhan way ka jabeen, laakiin xitaa hal ilig ma aysan reebin. Bobeeye aad ayuu u farxay. Isagoo faraxsan ayuu soo saaray buurigiisii alwaaxa ahaa. Laakiin ilbidhigsigii xigay, qudhaanjadii ayaa bartilmaameedsatay buurigiisii. Ilbidhigsiga gudahood way wada cuneen. Bobeeye oo ahaa nin bir ah, wuxuu horay u sii diyaarsaday buuri bir ah.